xulka Djibouti ayaa luqtii labaad barbardhac kula galay xulka Estonia gurigooda iyaga oo horay 2-1 uga badiyay tartanka isreebka koobka adduunka ee Qatar ka dhacaya 2022 sidaasina waxa hadda ay uga soo gudbeen wareegga guruubyada Khamiistii ayay Djibouti ku soo laabteen iyagoo kadibna magaalada Djibouti ku soo wareegay waa markii ugu horeysay oo xulka Djibouti dalkooda ay ku soo laabtaan iyagoo aanan gool laga dhalin dabaaldega iyo farxadda waxa uu kabtanka xulka Djibouti sheegay in ay soo bilaabeenba markii seerigii ciyaarta dhamaaday buu u dhacay hadda kabtanka xulka Djibouti Wacays Daawud ayaa sheegay in naadigu u baahan yahay taageero iyo isgarab istaag haddii loo oran jiray in qolka qaranka Djibouti haddaad bedisiin ayaan soo garab joogsan maanta waan badinay maanta waxaan u fadhinaa wixii dalka amba taageero amba mas'uuliyadii dalka inay ekiibka soo garab joogsadaan waayo ekiibka federation quraata male wasiir quraata male wadan baa leh calan baan sidnaa waa wadan waxa loo dagaaltamayo waxaan jidka marnay waa wadan waxaan guusho soo hoynana wadan haddii la doonayo in ekiib nationalku uu si professional inuu u dhaqmo waa in la soo wala garab joogsado ekiib nationalka sponsor buu u baahan yahay wax garab joogsado u baahan yahay maaliyad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in juwaarada la dhaqaaleeyo la dhiso waayo nivoogii waa nivo ka sareeya waxaan galayna haddii toole ciyaarta Iswatenia xulka Djibouti waxa ay sheegeen in jawiga lagu dheelayay ciyaarta uu ahaa mid adag balse ay la qabsadeen Mahdi Maxabe Xuseen waxa uu dhaliyay mid kamid goolashii lugtii hore Djibouti ay ka dhalisay Iswatenia jawiga isaga oo ciyaartaasi ka hadlayna waa kan kuraday wallahi maashkii aan halka ku soo ciyaaraynayna maash adag buu ahaa hawaduna aad bay u adkeed hawo culus baan ku ciyaaraynay inkastoo hawada ay cusleed adana uu jilib dhigno manu siideyn ilaa ala deeqna minid waan haynay alxamdulillah ma leeyahay qor kabriidka haduu xabad yahay mid wala jabin karay haduu isku duuban lama jabi karo ma ogsoontahay isku duubni baa horta wax ku qaadi karana talabaadna wallahi ambiance ku saambu si soconaya waa ka tareenka u dhaqaaqay inkuna naga hadhino baaran lahayn xulka Djibouti waxa uu soo maray marxalado kala duwan ilaa uu gaaray heer la joojiyo hawshiisii muddo 2 sano ah dib ayaa loo dhisay macallin u dhashay wadanka Faransiiskana waa uu leeliyaa haddaba qaab ciyaareedkoodii maxaa iska bedelay haddii aan isbedelka ka hadalna waxa weeyaan tababarayaal baa la keeni jiray ama tababarayaasha dalkeena Djibouti ayaa inta badan tababarayaal u ahaan jiro soo maray inta dambe xooga ayaa wax laga bedelay laakiin waxaad moodaa imaka waxa ku cusub waa tababare Julian ayaa isagu ku cusub oo isagu u dhashay dalkaasi Faransiiska horta lama oran karayo xoog adag ay la ciyaareen xul Itaala ama kaba awoodna ay la ciyaareen xulkan hore bay u soo wada ciyaareen 6-1 ayuu garoonka Djibouti kaga badiyeen 2-1 way kaga soo badiyeen Eswatini waxaad moodaa in intan dambe in ay ka soo baaba'ayso dhalinta reer Djibouti marka ay la kulmayaan qaramo kale oo qaaradaasi Afrika inay haba yaraatay wax cabsi ayna ka hayn markii loo eego sagaashimeeyadii oo aad ay uga cabsoon jireen xulalka qaran ee dalkaasi Afrikada oo wax kale ka aaminsanayeen hadii awood tahay hadii wax la halmaalataay laakiin ciyaartooyal badan oo Afrikaan ayaa iyagu xulka qaran ima kaan ka ciyaara taasi waa mid keentay in ciyaartooyda reer Djibouti ay la qabsadaan ayna dareemaan in ay dadkan isku awood yihiin waxbana ay ka duwaneen iskana cilin karaan waxaad moodaa ciyaartooyda reer Djibouti in ay ku dhameystaan ciyaarihii aan daawanay Ethiopia hadii ay ciyaartay la ciyaareen iyo hadii ay tahay Eswatini ciyaarta sidii ay ku bilaabeen in ay ku dhameysteen ayaad moodaa taana waxa keentay waa kalsoonida tababaruhu uu siiyay dhalinyaradaasi ee wax ka bedelay qaybtii ciyaaraha ee caawana inta hayno joogto bidhan waad maadsan tahay Cismaan teamka Djibouti kooxda Djibouti waxaan maleynaa jid dheer baa u haray laakiinse waxay bilaabeen horseedkii hore laakiin hadda inta ay sameeyeen guul weyn ay gaareen waad maadsan tahay Cismaan